waxaan tilmaamayaa in la yidhaahdo mas'alo dhacdo uun xaqiiqo min xaqaa'iq dunya ka mida haddaad ka hadashana bini aadam dhaawac bay gaadhsiinaysaa yuhuud la yidhaahdo 15 milyan dunidoo dhan markay joogaana nebiyullaahi moxamed oo 2 bilyan oo qof rumaysan tahay marka la caayana waa xorriyatulkalaam inay noqoto iyo xorriyatulqowl oo maxaa tan kale xorriyatulqowl u noqon weyday waa marka lagu doonayo Soomaalidu maxay oran jirtay la jiifiyaana bannaan wadaad baa ul taagay bay Soomaalidu oran jireen marka la rabana waxa la oran jiray la jiifiyaana bannaan waa la jiifiyaana bannaan sida u taala miidiyaha iyo bulshada iyo wax oo dhami wixii aanay doonaynin indhaha way ka laabtaan ninka reer galbeed ee wax geysta malafkiisa la baadhayo maalinuu dhakhtar ma tagay dad buu leeyahay wuu waalaa bari buu dhakhtarka la kulmay adiga ka waalani hadduu wax dilo waa muslim terrorist hadduu waalan yahay ka soo baxo meesha uu ka soo baxo cidifaalkiisa dib uma eegto idan waa la jiifiyaana bannaan baynu leenahay laakiin taasi waxay isbedeli kartaa markaad adigu hadasho markaad adigu muctaqadkaaga iyo diintaada difaacato markaad adigu soo bandhigto nebi maxamed wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam laakiin haddaad adba xishoonayso isleeday talow nebigii miyaad ma doodi karaysee maxaad tidhaahdaa haddaanad adba nebigaagii garanaynin dee ma difaaci karaysid waa marka labaad haddaanu adiga qalbigaaga ku weynayn dee dadka kale wuu weynaa kama dhaadhicin karaysid hadduu adiga qalbigaaga ku weyn yahay gaalkan yare dhafoorrada xiirtay oo aad dhafoorrada ka daba xiiranayso oo gaalka surwaalka dabada dilaaciya waa qalbigaaga ku weyn yahay adna surwaalka dabada dilaacinayso laakiin haddaad cumaamad ama koofiyad xidhato nebi armaad u ekaataabaad sileeday yaan dadku ku garanin saacinka maaha yaa dadku ku garanin koofiyadii idan hadduu agtaada ku weynaan waayo adigu waxaad rumaysnayd adigu diinkaagii iyo waxaad rumaysnayd hadduu agtaada ku weynaan waayo dadka kale agtooda nebi maxamed ha ku weynaado suurtagal maaha markaynu innagu nebi maxamed weynayno calayhi salaatu wasalaam ayaa dadka kalena weynaynaya innagay xilkeenna tahay markaasi dadka in badan baan ogaynba wuxuu ahaa intaanaan ka warramaynaa waa in taariikh baadhay oo wax baratay oo wax eegtay laakiin dadka inta badan dee miidiyahaasaa u warrama maalinna sawir yaroo qaldan soo saaraya maalinna hadal qaldan soo saaraya kaasaa u warramaya markaa dadku saasay u rumaysan yihin idan waa xil idinka idin saaran inaynu bashariyada u sheegno nebi maxamed inaanu weynaynoo qurhe inuu yahay rasuulkii loo soo diree badbaadin lahaa aakhiriya adduunba inuu moxamed yahay calayhi salaatu wasalaam hitler markaa micyaarkiisani wuxuu weeyaan inay kulmaan awoodda aragti dejinta iyo nidaamka iyo filosofi inaad dejiso iyo awoodda hoggaaminta iyo inaad zaciim noqoto iyo awoodda hadalka iyo dadka afkaartaada inaad gaadhsiin karto saddexdaasi inay kulmaan buu leeyahay hitler waa wax aad naadir u ah waa wax aan nolosha inta badan lagu arag haddaba brofesor raw baa markuu masaladaa hitler ka soo qaato wuxuu leeyahay haddaba saddexduu hitler yidhi waa naadir qof ay ku kulantaannu haynaa buu leeyahay saddexdaasoo qof qudha isugu tegey saddexdaasiba waxay ku kulmeen buu leeyahay rasuululislaamka diin iyo mabaadi' cusub la yimi hoggaamin la yimi khatiib mufawahoo dadka wuxuu rabo gaadhsiinayay buu leeyahay waana buu leeyahay fii shakhsi rasuuli اlislaami ra'a alcaalamu andar daahira calaa wajhi اlardi buu yidhi qofka islaamka hoggaaminaya ama nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan buu yidhi andar daahira waa muuqaalka ugu dhif iyo naadirsan ee dhulka korkiisa lagu arkay ee dhiig iyo laf ka samaysan buu leeyahay saddexdaas shay wada wata yacni filosofkani wuxuu leeyahay qof dhiig iyo laf ka samaysan oo bini aadam ah oo saddexdaas shay isku wata moxamed baanu aragnay buu leeyahay calayhi salaatu wasalaam walidaalika ba wuxuu tilmaamayaa buuggaygan markaan qorayo buu yidhi waxa igu adkaatay inaan nebi moxamed oo dhan ka warramo buu yidhi laakiin waxaa laga yaabaa buu yidhi waxoogaa sawirraa inaan idinka siiyo uun moxamedkii nebiga ahaa
muxamedkii dagaalyahanka ahaa muxamedkii rajululacmaalka businessmanka ahaa muxamedkii rajulu siyaasiga ahaa muxamedkii khatiibka ahaa muxamedkii muslix ijtimaaciga ahaa muxamedkii agoontu ay ku soo hoyan jirtay muxamedkii addoommaha xorayn jiray muxamedkii dumarka xoreeyey muxamedkii qaadiga noqday muxamedkaasi buu leeyahay taariikhihiisa wax yaroo ka mida baan idiin sheegayaa buu leeyahay buugga kan markaan qorayo ee nebi maxamedka naadirkaa kama warrami karayo yacni wuxuu ka cudur daaranayaa inaanu soo wada bandhigi karin nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam jawaanib alcadama qaybaha weyne uu leeyahay ayuha alaxiba outstandingka resultska ka soo baxay nataa'ijka uu dhaliyey siday u weyn tahay